بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمان مسؤولين تالكن joogto ugu horeeyo taliyaha qaybta booliska Jubbada Hoose Madaxweyne Maxamed Naasir iyo media iyo saraakiisha ka socota madaxtooyada halkan waxaan saakay isugu nimay rabnaa inaan ka sheegno halkan nin beriyaha kan aad media ugu jiray oo magaalada Boosaaso gabar Soomaaliyeed ku soo dhibaateeyay ka bacdina soo fakada Kismaayo yimi kuna dhuumaysanayay aagan Kismaayo iyo aaga u dhow ilaahay wuxuu noo soo galiyay xalay 12 iyo 12 daqiiqo inaanu ka soo qabanno meel la yiraahdo qandal oo ilaa 15 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo ninkaasi wuxuu ku jiraa gacanta ciidamada Jubbaland iyo mas'uuliyiinta Jubbaland baa haysa waqti badan iyo runtii juhdi badan baa la geliyay si arinta loo soo qaban lahaa oo ninka loo qaban lahaa gacanta lagu soo dhigi lahaa taasina waxaan rabnaa inay marxaanti u noqoto ama ay cadeyn u noqoto nin dambiile ah oo intuu meel dambi ku galo meel kale tagay inuu ku fakanayn waliba waxaan sheegaynaa ninkii gabar Soomaaliyeed dhibaateeya meel lagu deeymayo rag waaba laga xisaabtami karaa waa laga wada hadli karaa laakiin gabar Soomaaliyeed nin dhibaatadii umadu wada aragtay oo media ku jirta la u geystay yaani waxaan go'aansanay anagu qaymo kasta noogu kacday inaanu soo qabano ilaahina waan ugu guulay waxaan u mahad celinayaa dhammaan Jubbaland saraakiisheeda mas'uuliyiinteeda madaxdeeda madaxtooyadeeda oo runtii jundi weyn galiyay arintaas in lagu guuleysto aad baan ugu mahad celinayaa waxaan rajaynaynaa inaanu haddii Allah idmo isu soo dhaafino meeshuu dambiga ka soo galay aan mas'uuliyiinta Jubbaland gacanta u gelino waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii nagala qayb qaadatay fududeysa inaanu arintaas gacanta ku dhigno ninka oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Nugaal Mudane Cumar Faraweyne odayaasha dhaqanka dad badan bay arintaas culays ku ahayd Soomaaliya oo dhan bay culays ku ahayd annaga marka waxaan saaka qiraynaa inaanu haddii Allah idmo gacanta ciidamada ku jiro meeshii uu dambiga ka galay maxkamadaheeda iyo mas'uuliyiinteedana lagu wareejin doono waxaan idin sheegayaa inaanu soo qabanay Cabdirasaaq Warsame Ahmed xalay markay ay saacadu 6 saac 12 daqiiqo Cabdirasaaq oo dambi aad u xun ka geystay Puntland gabar Soomaaliyeedna intuu faraxumayay xabad ku dhuftay una soo fakaday dhinacan koonfurta ayna daba socotay dawladda Puntland waxa ciidamada amniga ee dawlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan ciidanka booliska Ilaahay u sahlay inay ku guuleystaan qabashada ninka isaga ah waxaana mahad mudan oo runtii mudan in la sheego madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland oo saacadii hawshu bilaabatay ilaa ninka dambiilaha gacanta lagu dhiga aan marna telefoonka gacanta ka dhigin khadka ku jiray oo isagu inta hagayay saraakiishii hawlgalka ku jirto laha meel hebla mara oo runtii xogogaal oo ah qaabka uu ninkan u dhuntay in lagu guuleysto muxuu ahay qayb muhiim ah ka qaatay in la soo qabto ninka dambiilaha aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland runtii waxa kale oo u mahadnaqayaa Basaam oo ah sargaalka u qaabilsan saxaafadda dawlad goboleedka Jubbaland oo isaguna runtii xalay aan ka seexanin hawlgalka isaga labadaba waan u mahadnaqayaa Ilaahay baa mahad iskale ciidanka dawlad goboleedka Jubbaland hawlgalkii xalay uu qaaday uu ku guuleystay ee la rabay in lagu soo qabto ninka dambiilaha ee gabadha Soomaaliyeed xumeeyay waxaan rabaa inaan u sheego dadka dhaqanka xun ee gabdhaha Soomaaliyeed inay u gafaan mar walba isku daya inaysan bad iyo bari iyo cir iyo dhul midna naga fakarin meel kasto ay galaan inaanu soo qabanin xalay ninka waxaanu ka soo qabanay meel laba qow dhaxdooda oo badda gabigeeda baan ugu tagnay isagoo jaad ku cunaya oo caagad biyo ku haysta oo meelaha jiir ku gal meel camal ku jira baanu xalay ka soo saaray Ilaahay baa noo sahlay inaanu qabanno isaga mahad iskale ninkii dambiilaha waanu haynaa waxa dawladda Jubbaland u gudbin doontaa sida aan Ilaahay ka rajaynayo dawlad goboleedka Puntland oo ah meeshuu dambiga ka galay dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ninkii dambiilaha inaanu soo qabanay oo nu hayno Ilaahay baana mahad iskale idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantiin haddaad tihiin dhammaan reer Jubbaland waad mahadsantiin